دان isku dayo inaan su'aasha ka jawaabo Djibouti maxaa ku qasbay Soomaaliya inay markasta arinteeda ay gasho ama ay ka hari weydo wax badan baa ku qasbaya rajadaadu intee la eg tahay shirkaan inay wax ka soo baxaan qofku maalinku waayo rajaha quusta xageeda oo qaado macnaha waxay ka dhigan tahay uu dhintay qofkaasi saadaradeedna in laga quusto maaha in xal la gaaro إلهي بقول ترى قلي مشكلة كستي أو عضبة إنه حل هذا مركانو مركزتي دان جيبوتي رجعنا قبنا أو رجعنا وحنا قبنا إن مرون حل قاري ما رجعكوا قبنا وبركة بعد إلهي سبحانه وتعالى ومدن مد برجوينا يو ومرك الله بعد ضد في عن أو إنه يصاب عن وضنينه داعض أو ضد كودا ونحيو ضد كودا ونحيو مسؤولية صارم قرنا يو كعب صنايع تاريخ دون نعدش أي كل فندون تو كعب صنايع إلهي سبحانه وتعالى ما أنت اللي صرت أقول يعني سفطت بما أنت تيجي صومالي ده الله بنايس مرة كقار كود قرنينين قف صومالي أو مرة كقار كود دين تليشانية مرة كقار كود محوها يعني إنه إلهي يقول دوانا يا شيخ مرنا الله يسمق قبض سين كرو إن أوقفكو قف مساجد كصوب حيلها يقول دواد مرنا صورة كلمة مركزاتو كبدر أو ما أنت واحد جرت رأي العام الإلهي دين أن إلهي ديجا أن إلهي ديجا قف كمسلك السنة وأمبنا إن لو دلو مركا ومشكلة وين أوتها ماذا هو حيوان أي ولا صعدة عدو مدة الصوماليات وحر بدتك إنه جارسيو مال قوس أو عدكس أي رجال دكتور أو أي كقوسته إن أرنت الصوماليات حل الله هلا رسح معها قف إلهي رميسان مرة إلهي كما قوستو نحرستي سنة كما قوستو مركز تبقى الرجال الله هيو إنقول لقارا هيو سابانا خبالا أو إنقول لقاري دونه هدي لهلو ضد وطنينا ضد عادة ضد حلكسة ومسؤولين أو سع عقلي أو فرسمنا أو تصرف هاي أو هو مارينا يا هدي لهلو قول إن لقارا هيو يا مقطع تبقى الرجال فعل قدره يوحقبض لقدره هول يللي ما دمر كاسي كس عفمات قبا وصف عن هولها ومارينيا بإذن الله تعالى جوشنا أمة الصومالية بقاري دونت. وده هذا الله نهدد وحليل وده هذا الذي هو وين أوفى. تعسبي كل ما وتعالوا في النهاية رجين كأبوك. والله دولة قبل كوحي كوغس بيه نبض إنه هلا. يتوب بينا دجال الصومالية كما سوى ذكرته. ما أنا هيسن كرته. أسباب بدل بينه هيسن كريم. وضد ما احتلال كرا سؤال هو نجرته الأمم المتحدة كمدا منظمات الدولية ودنا كمدا إثيوبيا مركا وضدك ما احتلال كرتو ونقول ما يسكرتو هو ومركا اللي بعد ما حجين كرتو ظروفها بدن أودد ما حجين كرتو ما نهيسن كرتو طلبات تصديحات ومدة الصوماليات ما توي براروسن تهاي مركا دلكود إنا حريانا هالجوين بوجران نبصي وجرا أو مدة الصوماليات ما يريدونتو inta imika ku jirto maan haday sii dheeraato in kala ku biiri doonta marka wiil kasta oo Soomaali wuxuu ku dhalan doonaa soo gobonimo doona marka waxa dawladaha ku qasban caalamka ku qasban in nabad Soomaaliya laga dhaliyo oo adduunku maanta iswala raadinaya inta badcadbadeedka meesha ay ka soo baxday anigu waxaan aaminsanahay inay tahay badcadbadeed caalami ah laakiin saydoon ha noqoto haday xitaa ku Soomaali ay yihiin raadka ay ku leeyihiin wadarto marakibti dhibta haysata caymiskii oo kor u kacay dawladda badan oo imika go'doon ku jiro oo maxay ahayd ay aad u raadinayso marka cid kasta ku qasban Soomaaliya inay nabad ka raadiso bahala galeen bay noqon doontaa marka hadii saa lagu sidaayo marka maadaama ay sidaa tahay Ethiopia waxaan rajaynayaa cabsi baa haysan oo مثلا inay u cabsanayso taariikhda dheerayd ee Soomaaliya iyo Ethiopia ka dhaxaysay dhinaca marka laga eego ururadan dagaalamo oo marka tasriixaadka aan aqli badan ku jirin ku hadlayo oo adiis baan ku soo tukanaynaa iyo waxay baan qabanaynaa iyo waxana faafinaynaa iyo waxa dawladdu way cabsanayaan hadii cabsida laga saaro oo dadku wala noolaasha la go'aansado dhaafo marka Ethiopia sabab ay ugu jirto ma jirayso Soomaaliya taariikhda kolkaan akhrisano ummadu way ku faan way daciifaan laakiin ummadu ma dhintaan marka ummadda Soomaaliyeed maanta dhulka ay taala way daciifsan tahay laakiin ma dhiman doonto laanu ma dhintaan ummaduhu waxaan aaminsanahay
wala hadalkana inay wax fiican ka soo bixi doonaan Ethiopiana biidhnillaahi tacaala inay iskaga bixi doonto Soomaaliya ma haysan karto waxyaalaha matalan Djibouti uga hadhayn waxaa ka mid ah matalan madaxweynaha Djibouti oo og qiimaha ay Soomaalida ugu fadhido shacbiga Djibouti oo og dadka Soomaalida qiimaha ay ugu fadhiyaan walaalnimada macnaha ihtimaam badan bay siinayaan oo in marna laga hadhay marka waxyaalaha aan isleenahay Djibouti uga ma hadhayso macnaha waxa bini aadamku isku naxo idaylkeed baa Djibouti iyo Soomaalida ka dhaxaya waxa bini aadamku isku damqado idaylkeed baa shacbiga Soomaaliya shacbiga Djibouti ka dhaxaya sadaradeed marnaba Djibouti way daba taagnaanaysaa madaxweynaha iyo shacbiga Djibouti iyo xukuumadda Djibouti intuba waxa xanuun iyo damqasho ku ah ama xanuun joogto ah ku haya xaaladda Soomaaliya sida ay tahay marka meel ka soo dhawaato meel kale ay ka furmayso iyo walaalahooda Soomaaliyeed oo iyagu isku naxayn walaalahooda Soomaaliyeed oo iyagu isku damqanayn walaalahooda Soomaaliyeed taladooda fogeynaya walaalahooda Soomaaliyeed oo marka soo tala soo dhawaataba cid kale talada Soomaaliyeed gacanta u gelinaya aad baa taana dib weyn ugu qabnaa ma santaa la